hadda inaga markaan runta u wada hadalno dadka masaajidka ku jira gabadh kasta oo adiga aad dhashay adiga waxaa la arkaa dadka hadda odayaasha waaweyn oo dhan ee masaajidka ku jira intooda badan kuwa xoogaa yar haysta mooyeen tarafanka ay wataan tooshla waay kii yaraa dad yarka ahaa ee tooshke ama 1500 ama 2000 gabadhiisuna waxay wadataa iPhone 15 ama 16 oo hadda soo baxay waa 200,000 lacagta Kenya haddii la xisaabo hadda waa 200,000 tarafanka iyada gabadh xagga keentay weligaa ma weydiisay gabadhaada tarafankan weynay wadato ee habeenka o dhan haysaa leedahay meel ay ka keentay adi maada siinin oo walaalkeed ma siinin oo adeerkeed ma siinin oo abtigeed ma siinin oo awowgeed ma siinin oo walaasheed mayna siinin oo wax siiyey ma leh telefonkan xaggee ka yimid mayna lagu weydiinaynin maad maalinta qiyaama ma nin baad u malayna 200,000 intuu iska soo qaado oo ula soo ordo gabadhaad inuu dhuc ku siini meesha alaab baa kharibatay balaayaa baabaaday waxbaa lagu bedeshay telefonkan waxbaad ogaataa telefonkan waxbaa lagu bedelay wixii lagu bedelay waa wax gabadhaada ka go'an marka waxaa la rabaa ruuxa ragga ilaahay subxaana wa tacaala uu mas-uul ka dhigay gabadhiisu telefonka ay wadata meeshay ka keento waa inuu weydiiyaan maxaa weligii ma gadanin isagu lacagtaana maba helinba 200,000 kaashoo wada socoto weligiiba inay soo marin baa dhici karta marka waxaa la rabaa gabadh kastana telefon bay wadataa ilaahuma aqal hor ciddooda deganaad telefon bay wadataa iPhone xagee ka keentay biyo soo xaday batuuga ma soo xadin nin baa siiyey ninkana waxba isuma aha ma qabo ma guursanin ma soo doonin reero dhan haddaa gabadha hadduu doono ninka oo ay u doonan tahay oo la siiyey hadday dhahdo wariyaa telefon laa maane telefon ii keeno uu keeno waaba xaaskiisa soo socdee waa wax la garto mana u doonana wax kalena kama rabo rajo kale kama xidhiidh kalaa jira oo diin aan ahayn marka walaalow waxaan ku dhihi nin walowba waxaad mas-uulka ka tahay maalinta qiyaama ilaahay hortiisa lagu weydiin doono ilahay muxuu quraanka ku yidhi quu anfusakum waahliikum naaran war naftiinna iyo ehelkiinnaba naarta ka badbaadiya gabadhaada waxay naar ku gelayso oon ilaahay diintiisa ogolayn ka horstaag ilahay subxana wa tacala taasuu kaa rabaa